daawadayaal ku soo dhawaada wararka Soomaalida ee Bakaal Media qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo xalay markuu waqtigu u dhamaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdilaahi Farmaajo laga maqlay rasaas xoogan oo dabaaldeg ah oo la ka dhan ah madaxweynihii hore ee Farmaajo oo ka bilowday caasimadda Mareykanka oo Farmaajo u diray dalab degdeg ah oo la xiriira doorashada iyo beesha caalamka oo war xasaasi ah ka soo saartay doorashooyinka maxaa ka soo baxay kulankii xalay magaalada Muqdisho ku dhaxmaray gudoomiyaha baarlamaanka Mursal iyo musharaxiinta iyo midowga musharaxiinta oo go'aano 6 qodob ah ka soo saaray dhamaadka madaxweynaha Farmaajo intaasi waxa ahaayeen qodobada warkeena ugu doorka roon haatanna isagii oo faahfaahsan madaxweynihii hore Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waqtiga uu ku dhacay mana cadda sharciyada uu ku sii fadhiyo kursiga kadib markii uu dhameystay 4 sano oo ku ekayd 12 iyo 59 daqiiqo February 7 2021 saqdii dhexe ee xalay Farmaajo ayaa waqtiga uu ku dhamaaday iyadoo aanay kala cadeyn sida xaaladda siyaasadeed ee dalka ay ku dambeyn doonto kadib markii lagu heshiin waayay doorasho lagu soo doorto madaxweynihii isaga bedeli lahaa daqiiqadii uu waqtiga ka dhamaaday Farmaajo waxaa magaalada Muqdisho isqabsaday rasaas xoogan oo ay ridayeen ciidamo ka soo horjeeda madaxweynihii hore oo u dabaaldegaya dhamaadka waqtigiisa taasi oo cadeyn ugu filan heerka nacaybka shacabka magaalada Muqdisho iyo ciidamadooda ay u qabaan madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Farmaajo ayaa markii la doortay waxa sidaani oo kale magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka isqabsaday dibadbaxyo waaweyn iyo rasaas ay ciidamada tuurayeen hase ahaatee taa cagsigeeda xalay tale magaalada Muqdisho saacado waxa xabada ay ka dhacayeen caasimadda qaybaheeda kala duwan degmooyinka Kaaraan Hodan iyo Daynile ayaa aad looga maqlay rasaasta iyo guud ahaan caasimadda waxaana ciidamada rasaasta tuurayay ay aad ugu dhawaayeen fariisimo ay ciidamada dawladdu ku lahaayeen caasimadda iyo baran control lama oga waxa uu xaalka dalka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho ku dambeyn doono balse waxa cad in xaaladdu ay markaas faraha ka sii bixi karto mana cadda doorka beesha caalamka ee xaaladan cakiran ee caasimadda ku soo wajahday maadaama dalka uusan lahayn wax madaxweyne sharci ah qaybihii ugu horeeyay wararka Soomaalida ee Bakaal Media ayaa daawanaysaan dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday madaxweynaha waqtiga uu ku dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya inay si degdeg ah u xaliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka Soomaaliya beesha caalamka ayaa Farmaajo ugu baaqday inuu heshiis la gaaro madaxda maamul goboleedyada si ay taasi u ogolaato in si degdeg ah loo fuliyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tagay wuxuu dhaliyay horumar la'aan niyad jab leh oo ku aadan dagaalka al-shabaab horumarinta amniga sare u qaadida horumarinta dhaqaalaha kadib markii lagu guuleystay wajiga koobaad ee deyn cafinta iyo in si wax ku ool ah wax looga qabto amni darrada cunnada iyo musiibooyinka halis gelinaya Soomaali badan ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay in si degdeg ah loo xalliyo ismariwaaga siyaasadeed ay muhiim u tahay mustaqbalka Soomaalida waa mas'uuliyadda iyo waajibka qaran ee hogaamiyayaasha qaranka iyo kuwa gobolada inay dhinac iska dhigaan raadinta faa'iido siyaasadeed ayna taa beddelkeeda ka shaqeeyaan danta shacabka Soomaaliyeed oo u qalma inay wax u wanaagsan ka helaan hogaamiyayaashooda ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda Mareykanka hadda waa waqtigii la xalin lahaa arrimaha taagan lana dhameyn lahaa shaqada doorashada ayay ku soo gabangabeeyeen Mareykanku warkooda ay ka soo saareen Soomaaliya dhanka kale beesha caalamka ayaa war ka soo saartay xaaladda cakiran ee dalka war saxaafadeed ka soo baxay xubnaha dalalka beesha caalamka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda adag ee kala guurka ah doorashooyinka 2021 ee shirkii wada tashiga ee Dhuusamareeb qoraalkan oo ay si wadajir ah u soo saareen xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan dadaalada socda ee ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka si loo gudbo xaaladda adag ee kala guurka ah sidoo kale beesha caalamka ayaa shaaca ka qaaday in horumarka laga sameeyay qodobada qaar ee shirkii Dhuusamareeb kuwa kalena lagu kala tagay balse ay rajeynayso beeshu in mar kale laga wada hadlo si loo sii ambaqaado dadaalada socda ee doorashooyinka sanadka 2021 wadahadalada lagu qabtay Dhuusamareeb 1 ilaa 6 Febraayo horumar ayaa laga sameeyay qodobo badan oo muhiim ah laakiin laguma wada heshiin dhammaan qodobadii taagnaa waxaana aaminsanahay in ay weli suurtagal tahay in la gaaro is-afgarad iyo dhammaan dhinacyadu ay ogol yihiin wadahadalo dheeri ah ayaa lagu yiri war saxaafadeedka beesha caalamka ayaa sidoo kale ugu baaqday madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada dalka iyo saamilayda kale in ay muujiyaan tanaasul si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka dalka iyada oo la ilaalinayo danta guud ee qaranka ugu dambeyn wakiilada ayaa ka digay in la qabto doorasho aan heshiis lagu ahayn waxayna shaaciyeen in aanay heli doonin taageerada saaxiibada beesha caalamka
waxaa mar kale hoosta ka xariiqaynaa in natiijooyin kasta oo aan ka ahayn kuwa la isku raacsan yahay oo ay ku jiraan geedi socod barbar socod ah ama doorashooyin dhinac kali ah oo aan loo dhammayn ama falal kale oo aan si ballaaran loogu wada heshiin inaanay heli doonin taageerada saaxiibada beesha caalamka ayaa lagu yidhi warka qoraalka ay kasoo baxay beesha caalamka. hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo ay kasii darayso xaalada siyaasadeed ee dalka, waxaana haatan dhammaaday muddaxileedka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo. qaybihii dhexe ee wararka Soomaalida ee Bakaal Media ayaa daawanaysaan. faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa kulan u dhexeeya xubnaha midowda musharaxiinta mucaaradka iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. kulankan oo ka dhacay hoyga gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ahaa mid albaabadu ay u xiran yihiin, wuxuuna qaatay muddo saacado ah. intiisa badan waxaa kulankan diiradda lagu saaray xaaladda dalka, arrimaha doorashooyinka iyo sida laga yeelayo xilhaynta madaxweynaha maadaama uu waqtigu ka dhammaaday madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in midowda musharaxiinta ay gudoomiyaha golaha shacabka kala hadleen inuu qaatay doorkiisa isla markaana uu kusimo ka noqdo dalka, taasoo uu ka biyadiiday Mursal sida ay shaaciyeen ilo ka dhow kulankaasi. xaaladda dalka ayaa haatan cakiran iyadoo aanay kala cadayn sida ay wax noqon doonaan maadaama lagu heshiin waayay doorashada dalka ee sanadka 2021. si kastaba beesha caalamka iyo dadka odorosa arrimaha siyaasadda ayaa ka digaya in dalka uu galo firaaq dastuuri ah kana dhacaan qalalaasa siyaasadeed oo hor leh. dhankooda midowda musharaxiinta ayaa war ka soo saaray xaaladda dalka ka taagan, iyagoo qodobo ka soo saaray. warka qoraalka ah ayaa waxaa lagu yidhi golaha midowda musharaxiinta wuxuu caddeynayaa mowqifkiisa ku aadan dhammaadka muddaxileedka madaxweynaha sagaalaad iyo buuxinta firaaqa dastuuriga ah ee xilka madaxweynenimo, wuxuuna soo saaray qodobada soo socda. 1. laga bilaabo 8 Febraayo 2021 golaha midowda musharaxiinta uma aqoonsana Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. golahu wuxuu ka soo horjeedaa muddo kororsi, caburin gacan ka hadal iyo dib u dhac ku yimaada doorashada. golahu wuxuu soo jeedinayaa in la dhiso golo qaran oo ku meel gaar ah Transitional National Council oo ay xubno ka yihiin gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, wakiilo ka socda golaha midowda musharaxiinta iyo bulshada rayidka ah. golaha qaran wuxuu iska dhex dooranayaa gudoomiye xilkiisu meerta yahay. waa in gudoomiyaha golaha qaranka uu shir isugu yeero madaxda dowlad goboleedyada, gudoomiyaasha labada aqal, wakiilo ka socda golaha midowda musharaxiinta iyo bulshada rayidka ah si loo dhammaystiro hirgelinta 17 Sebtembar heshiiskii la gaaray. waa in si degdeg ah oo aan dib u dhac lahayn loo soo saaro jadwal doorasho oo la meel mariyo ama lagu meel mariyo muddo cayiman oo la isla ogol yahay. golahu wuxuu ugu baaqayaa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday inuu dastuurka iyo sharciga dalka u hoggaansamo si uusan u lumin xuquuqda uu leeyahay ee madaxweyne hore, taasoo shardiga ku xiran uu yahay inuu xilka si nabad ah u wareejiyo. golahu wuxuu ugu baaqayaa hay-adaha dowladda gaar ahaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka inay sharciga u hoggaansamaan, wuxuuna golahu uga digayaa inay kasii amar qaataan shakhsiyaad muddaxileedkeeda dastuuriga ah u dhammaaday. hay-adaha waa inay daacad u noqdaan nidaamka dastuuriga ah, dowlad wanaagga iyo danta guud ee qaranka Soomaaliyeed ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka ka soo baxay midowda musharaxiinta. qaybihii dambe ee wararka Soomaalida ee Bakaal Media ayaan isla soo gaarnay. markanina madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo soo saaray war qoraal ah ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, marxaladda kala guurka ah ee la galay iyo arrimaha doorashooyinka ee 2021. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marka hore ku eedeeyay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo inuu dalka geliyo xaalad hubanti la'aan ah oo mugdi sii gelin karta rajada ummadda Soomaaliyeed. waa xaqiiqo aan la jeclayn in madaxweynaha xilkiisu dhammaaday uu dalka geliyo xaalad hubanti la'aan ah oo mugdi gelin karta mustaqbalka dalka, ayuu yidhi. sidoo kale wuxuu musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intaasi ku sii daray in Soomaaliya ay leedahay shacab iyo haldoorro badbaadin kara dalka iyo dadkaba. Soomaaliya waxa ay leedahay shacab iyo haldoor ka samata bixin kara xaaladda adag, waxaana ku baaqayaa xasilooni iyo aragti wadaag, ayuu sii raaciyay madaxweynuhu. si kastaba hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo lagu heshiin waayay doorashada dalka, sidoo kalena madaxweyne Farmaajo ay ka dhamaatay muddada xilhaynta. daawadayaal waxaa intaasi inooga eg wararka Soomaalida ee Bakaal Media. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar, haddii aad muuqaalkan ka heshana like saar. mahadsanid.